guddoonka labada gole xildhibaanada marwooyin iyo mudanayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane guddoomiye su-aalaha shanta xildhibaanna weydiiyeen baan doonayaa inaan uga jawaabno su-aal su-aalaan wada qoranay aniga iyo tiimkayga ka wada jawaabi doona waxyaalana anaa ka jawaabi waxyaalana wixii technical u baahanna waxaa ka jawaabi doona tiimka. haddaan ku bilaabo cali mahdi maxamed dhowr su-aalood oo runtii wax ku oola ayuuna weydiiyey inta badanina u baahan calculations soo xisaabiyey percentageska oo aan iswaafaqsanayn ayuuna weydiiyey waxyaalaha calculationkaas u baahan waxaan doonayaa inaad ii ogolaataan in hadhow inaad ka jawaabo. waxa kale uuna weydiiyey wasaaradaha iyo allocationkooda wasaaradda maaliyaddu ma samayso waxa weeye wax collectively loo sameeyo ku saabsan terms of referenceka wasaaraddu walaba leedahay iyo activitiesay qabanayso oo la kosgareeyey weeyaan waana waa national level wey. annagu simply waxaan ka hadalaa marka ay wax soo gudbiyaan sanad walba ayaa waxay soo gudbiyeen wasaaradaha oo dhani wakaalada oo dhani dhowr iyo 70 iyo waxaan haynaan iska rabdhignaa markaasaan wixii uga go'i kara samaynaa laakiin basicu waa functional statementka wasaaraddu leedahay. sidaasaad u aragtaa in la kala waaweyn wasaaradu kala waaweyn yihiin of course kanana kos badan yihiin kanana budget badan yihiin. again waxaad soo qaadatay wasaaradda maaliyadda taasi mar labaad waxaan doonayaa halkan markuu yimaado inuu arrintan sharaxo mashaariicda faraha badan leh wasaaradda hoosta waxaan doonayaa in kala sheego mudane guddoomiye mashaariicda aad baynu uga hadalnay waxaan mar labaad idin weydiisanayaa mudanayaal iyo marwooyin guddoomiye inaad maalin noo fasaxdaan in halkan idinku nimaadno oo mashaariicda isla eegno dakhliga waddanka soo gelaya ee mashaariicda ka soo gelaya iyo halkay gelayaan iyo habka feasibilityga loo sameeyo habka allocationka loo sameeyo baahidu halkay ka taagan tahay sida loo kala wax badan yahay stagesku way kala baahi badan yihiin way kala quwad badan yihiin way kala capacity way yihiin yani criteria ballaadhan baa la isticmaalaya si allocation wixii lahayo loogu sameeyo laakiin ma jirto meel muxuu ahaa state la yidhi ka waxba lama siinayo wax dhacaya maaha mana dhicin anigu as far as I know. marka taasi waa arrin ballaadhan maraan iskaga nimaadno baarlamaankii horena dhowr jeer baan weydiisanay aniga iyo minister of planning inaan idiin nimaado sidaasaan markaa aan wax ku kala qaadan karnaa maaragta laakiin 1 minute halkana joogno budget laga hadlayo wax waloo dhan ba lama tanfatiri karo taasina taas baan ayaan runtii ka oran now arrinta 18 gobol ee Soomaaliya ahayd qaar baan waxba gaadhin de waa arrin la oran karo waa la oran karaa sida kuwa kaleba loo leeyahay stateska qaar baa aan wax badan gaadhin dani iska jiru noqon karaa laakiin anigu waxaan idin sheegayaa waxa mashruuc ah meel walba uu gaadhaa mashruuc meel walba uu gaadhaa meel walbana cid baa ka mas'uula meel walba cidda ka mas'uulka ah way tahay in lala hadlo mashaariicdu waa baahsan tahay intaasoo gobol 18 gobol ba inay gaadhaa loogu talagalay ciddii ka mas-uulana loogu dhiibo ayaa runtii loo baahanya lana sameeya aan isla lafaguro xataa budget supportka mashruuca iskama dhaafo meeshii ceel looga baahan yahay ceel laga qodi meeshii iskuulla zaa'ida u baahan baa iskuulla laga samayni laakiin hadba cidda maamulka haysa ayaa lacagta loo mariya. waxaan isku daynaa annagu lacagta waddanka soo gaadhaa dee dowladda isku dayda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cabinetku isku dayaan annagoo idinkana idinla socodsiinaynaa cid walba dalkan gaadho waxa khayraad idin yimaad xataa budget supportka la idin sheegaya halkan imanaya qiyaastu iskula day waxa weeye sidee wax uga helaysaa calculationkeeda la gelaya marka maxay tahay criteria la isticmaalaya maxay tahay dakhliga meeshaasi muxuu yahay sidee loo kala wax badan yahay waxaasoo dhan oo la isku keenay ayaa dabeetana sal u noqonaya
ya ama buddig u noqonaya in wixii la hayo la qaybiyo oo ay wada gaadhaan taasna iyaduna taa weeye ma odhan karno waxa weeyaan everything is equal ma odhan karno oo baahidii baa kala sarsan laakiin cid la yidhi cid ayaa waxba la siinin horta meesha ma taalo wixii aan ka tegey markaa waxa iga dambayn doona muxuu ahaa tiimka iga dambayn doona wasiir saadiq isaguna dhowr su-aalood buu na weydiiyey oo uu ku jiro buugga af ingiriisi ugu qoran waa ka xunnahay cudurdaar baan samaynaynaa oo buugga cid kale nooma soo qorin xaasha annaga waxbaan kala garanaynaa annagu cid wax noo soo qortaana ma jirto cid waxoodaan soo naqlanaana ma jirto ma jirto wiino waan ognaa waxaan ka hadlayno waxa iyagana waa naqaanaa in fact annagaa dadka imika wax sheegna wallaahi arrinta budgetka annagaa dadka wax sheegna arrinta deyn cafinta annagaa dadka wax sheegna marka cid baad ka soo qaadateen annaga ma ogolaanayno way dhammaatay taas horta waa taa wey af ingiriisiga waa bedelaynaa sababta af ingiriisiga halkan loogu keenin waxa weeye documentkaasoo saa u dhan baa degdeg lanooga baahna laakiin waa bedelay translationkiisa lagu jira Soomaali waa nahay of course af Soomaali waan ku hadlaynaa marka taana waa bedelaynaa laakiin annagaa soo qoranay walaakiin laga kale wala meel kale taasna iyaduna waa taa wey waxa iga dambayn doona tiimka iga dambayn doona again wasiir saadiq wuxuu ka hadlay mashaariicda meelaha ay ku kala jiraan mashaariicda mar labaad haddaan ka hadlo mashaariicda waxna waa programka dusha sare iyo isku dubaridka iyo ogaanshaha iyo oversight-ka waxa la yidhaha waxna waxa weeyaan ceelka yaa qodaya ya waxna waa ceelka yaa qodaya ceelka waxa qodaya wasaaradda biyaha wasaaradda biyaha la leeyahay tamarta ya wasaaraddaas qodaysa yaa beerta beeraya wasaaradda beeraha beeraysa ya laakiin markay general noqoto waxay shalayna waan sheegay waa inay development plan-keena ku jiraan haddaanay ku jirin anigu ma taaban karo ma ayaa sameeyay planka ministry of planning baa soo samaysa 5-year program baan leenahay oo la isla arkay oo la isla discuss gareeyay ya oo cabinetku arkay ya ka hadduu ku jiro lacagna loo helo markaas average-ka la sameeyaa meesha barba looga baahan yahay ayaa la geeyay now implementation-kiisa waxa iskale wasaaradda technically capable-ka waa capacity-ka u leh ayaa iskale waa taliyaasha beeruhu waa beeraha livestock xooluhu waa xoolaha irrigation waa wasaaradda agriculture-ka commerce waa ministry of commerce weeye so marka oversight-ka finance-ka ayaan ugu shaqaleynaa oversight-ka finance-ka aan ku shaqaleynahay waxa weeyaan lacagta disbursement-keedii hal la raadiyo anaa ka mas'uula ma la disburse gareeyay lacagtaas halkaa ma gaadhay I am the accounting officer for that in la yidhaahdo lacagtaas halkay martay waa taasana noo ku shaqo wixii kale waxa ku shaqo leh agreement-kana de waa saxayo ana saxayo dawladda Soomaaliya aniga oo wasiirka maaliyadda markaa jooga baa u saxaya marka mashaariicduna hood siyaasiyiin adduunkuna waa sidaa adduunkuna waa isaguna sidaas oo adduunkan yaa la mid tahay wixii aan ka tagay waxaan doonayaa in now hay'adda musuqmaasuqa waa halkan la soo qaatay hay'adda musuqmaasuqu waa hay'ad muhiim inoo aad bay muhiim inoo tahay way dhisan tahay marka hay'ad la dhisan isla maalintaaba ma taabageli karto oo dhaqaaleyna iska yar quwadeena iska yar capacity-ga hayaanbaa yar laakiin way shaqeeyaan xafiis bay leeyihiin guddoomiyahoodii iyo guddoomiye ku-xigeenkii bay leeyihiin staffkii bay leeyihiin marka laga yaabaa inaanay weli wax badan soo saarin waa cusub yihiin laakiin way jiraan waa joogaan waana shaqaynayaan waana hambalyeynaya aad bay u fiican yihiin ya taasina haddaan wax gafay waa ku soo noqon doonaa xildhibaan faa'iisa iyaduna dhowr arrimood ayay ka hadashay xisaab xirku ku jiro waxyaalo badanoo kale ku jiraan iyo mashaariicda qaybinteeda iyo budgetka iyo waxyaalahaas ku jiraan iraad baan doonayaa inuu arrintaasi iyo tiimka inay ku soo noqdaan xildhibaan cali saciid fiqi isaguna dhowr su-aalood oo again mashaariicdu ka mid tahay يعني وحياة بدن با علي إنه ودي ناو مشاريع ذا دخل معها يا أورنكرا مشاريع دخل معها دخل وطن كسوق دخل ماشى شقد الله جوده يمد وي ماشى عيل كلا جوده يضد كجوجا أيو العكس يا
dibaddu ka yimi inuu meel soo maray markii hore waxaasoo dhani